الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقربooyinkeenii taxanaha ahaa aynu kaga warramaynay nebigeennii moxamed calayhi afdal الصalaati watasliim. qormadeennii tan ka horreysay waxa aynu bilownay inaynu ka waranno, aynu ka sheekayno nebi moxamed sidee ayuu u ekaa. waxa aynu ku jirray oo warkuu inoo marayey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam madaxiisa iyo timihiisa. waxaynu sheegay nebi moxamed calayhi afdal الصalaatu watasliim timihiisu inay ahaayeen timo dhexdhexaada oo timo adag oo juraana may ahayn, timo jilicsan oo kuwa seexda ee aan la toosin karinna maanay ahayn. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam timihiisa mar waa dheerayn jiray oo ilaa degta ayay u gaarhi jireen, halka garabka iyo qoorta u dhaxaysa. marna nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa waa ka gaabin jiray oo dacasha dhegta ayaa timihiisu ay ku sinaan jireen. aad buu nebi moxamed timihiisa uga shaqayn jiray si aynu sheegnay, hadday noqoto dhaashi iyo hadday noqoto maydhitaan iyo haddii ay noqoto nadiifin intaba. nebiyuna moxamed calayhi afdal الصalaatu watasliim timihiisa iyo garhkiisaba ciradu aad bay ugu yaray, iyadoo cumrigiisu uu gaadhay 63 sannadood. waxaanuu nebigeennu ka warramay calayhi afdal الصalaatu watasliim midharhkaa cirada ah ee 20 tin saxaabadu ay dhaafin waayeen markii ay tiriyeen waxaa ka soo saaray. qofka bani aadamkaa da'na way ciraysaa, asbaabo kalena waa ku ciroobi karaa. waxaa loo yaqaano warwarka iyo walbahaarka iyo murugada tirada badani waxay sababi kartaa, sida xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu ka dhiiganayno, qofka ciradiisu inay fara badato ama cira inay ka soo baxdo. nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ma haynin warwar adduunyo. baashan adduunyo la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa may gelin oo hamigiisa u weyn may ahayn. hamigiisu wuxuu ahaa hamul aakhira. waxaa halkudhegiisu uu ahaa iyo hadalka in badan laga maqlay: maali walidunyaa inamaa ana fi اdunyaa karaakibin istadalla taxta shajaratin yantadiru mataa yatrukuhaa. anigu waxaan adduunyadan dusheeda ka dhiganahay, aniga adduunye maxaana kala galay? anugu adduunyada dusheeda waxaan ku ahay sidii qof socdaala. dhammaanteenna sidaasi ayaynu ku nahay, maaha gurigeennii rasmiga ahaa. qofkaa socdaalkaa oo harhsaday geed, sugayana goortii geedkaa uu ka dhaqaaqi lahaa ee socdaalkiisa uu sii wadan lahaa. haddaba maxaa cireeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee midharhkaa ciradaa ka soo saaray? waxaa ka soo saaray suuradaha qur'aanka qaar ka mida. suuradahaasi waxay aada uga warrameen qiyaamaha iyo xaaladaha adag ee taagan, naarta iyo jannada. arrinta noocaasi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay qalbigiisa ku beertay welwel fara badan, welwelkaasi oo sababay ciradaasi inay ka soo baxdo. waa ka yidhi nebigeennii moxamed calayhi afdal الصalaatu watasliim arrintaa warkeeda isagoo ina siinaya: shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa. waxa ay ciraysay suuratu huud. waa suurad aada uga warrantay nebiyadii ilaahay uu soo diray calayhim الصalaatu wasalaam iyo qoomamkoodii waxa dhex maray iyo ilaahay siduu u halaagay dadkii nebiyada caasiyey ee rabbi ciqaabkiisa uu ugu habsaday. waa suurad aada uga warrantay qiyaamaha, waa suurad aada uga warrantay jannada iyo naarta, xaalado aad iyo aad u adag oo qofka inuu qalbigiisa iimaan ku jiro warwar fara badan ku beeraya. iyo suuradaha la midka ah ay ka mid tahay suuratu almursalaat oo iyaduna aada uga warrantay naarta iyo sifaadkeeda iyo tilmaamaha ay leedahay. ilaahay subxaana wa tacaala haynaga badbaadiyee. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam timihiisa waa casayn jiray oo khidaab ayuu marin jiray. waana u bannaan tahay qofka muslimka ah timihiisa ciroobay ama aan ciroobinba inuu midab kale u yeelo oo midabkoodaasi aan ahayn, marka laga reebo madowga. in la madoobeeyo timaha, gaar ahaan kuwa ciroobay, nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa diiday. oo waxaa loo keenay rasuulkeenna abuquxaafa. abuquxaafa waa saxaabi qaaliya oo dad aada u qaaliya ay ka farcameen. oo abubakar radia allahu canhu aabbihii. reer abubakarna waa garanaynaa xaalkooda iyo wanaaggooda si fiican baynu la soconnaa.
abu quxaafo markii nebiga loo keenay wuxuu ahaa nin da-ah oo madaxiisu caddaaday kaana ra'sahu thuqaama waxaabaad mooddaa madaxiisa geedkan la idhaahdo wancadka ama soonahda ee barkimooyinka ay ku cabbayn jireen ay ka samaysan jireen dadkeennu ubaxiisa wakhtiyadii hore xagga caddaanka kaasabaad mooddaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu indhaha saaray madaxaa caddaaday iyo timaha balayaxa ah waxaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam yihi ghayiru hada shayb wajanibuhu sawaad ciradan bedela yaana midabkan cirada sidaan u caddaaday madowga waxaa la idhahana ka fogeeya oo ha marinina waxaanuu rasuulkeennu sheegay aakhiru zamaanka oo wakhtigan aynu joogniyo wakhtiyada ka sii dambeeya waanaynu aragnaa arrinta noocaas oo warkaa nebiga calayhi salatu wasalaam indhahaynu ku haynaaye inay ummaddiisa ka mid noqon doonaan kuwo timahooda mariya midabka madow waxaanu sheegay rasuulku jannada udugeeda kuwaasi inaanay helahayn taasina waxay tilmaamaysaa in arrintaasi ay tahay dembi aad iyo aad u weyn oo culus marka rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam khidaabka ama midabaynta timaha wuu sameeyey laakiin madow ma marin timihiisa ummaddiisana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uga digey madowga la diidan yahayna waa madowga khaaliska ah ee badhaxa tiran laakiin haddii midab kale uu ku jiro oo si fiican u muuqda sida casaan oo kale sawaadun yamiilu ila alxumra madow xoogay u iilanaya u janjeersanaya xagga casaanka isaga dhibaato ma laha waa la marsan karaa laakiin casaanku midab kaleo isaguna muuqdo oo inuu meeshan jiro la arki karo waa inuu noqdo waana waxaa katamka loo yaqaan ee nebigu isticmaalay saasoo kale khulafadiisii kuwa ka mida sa abubakar iyo cumar radia allaahu canhum ajmaciin nebigeennu calayh afdal asalaatu watasliim ciradaa ka soo baxday uma arkahayn inay tahay foolxumo manuu ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam mid cirada la dagaalama oo rifa bal wuxuu sheegay nebigeennu ciradu inay tahay nuurka qofka muslimka ah markaa qofkii doonaya nuurka inuu iska rifo ha iska rifa buu uhi nebigu calayhi afdal asalaatu watasliim qof isagoo muslimah oo diinta islaamka ku dhex jira oo ilaahay ugu nicmeeyey ku dhex ciroobay waa qof ilaahay subxaana watacaala u nicmeeyey dhinac kale haddii laga eegana waxaan loo yaqaana ciradu qofka waxay u tahay digniin culimmada qaarkood waa kuwa ku fasiray ilaahay subxaana watacaala qowlkiisa uu yidhi awlam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaa'akum الnadiir miyaanaan idin cumri siin muddo wax uu ku qaato uu ku waantoobo qofka waantoobaya digihiina miyaanu idin iman kaa digaya waxay ku fasireen culimmada qaarkood cirada tii ay noqotaba qofka muslimkaa ma bannaana timaha cirada ee ka soo baxa madaxiisa ama garhkiisa inuu rifo uu googooyo asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii ay noo suuraynayeen sawirkiisa dhabtaa ayna siinayeen waxa ay sheegeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa baciid maa bayna almankibayn labadiisa garab inay kala fog yihiin markaa dhabarka nebigu calayhi salaatu wasalaam mid yaroo dhuuban oo kooban inaanu ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam garbihiisu waxoogay ay kala durugsanaayeen ayaa asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim ay inoo sheegeen waxaa nebiga kaga yaalay dhabarka halka labada garab dhexdooda ah oo weliba xigta dhinaca carjawda garabka bidix waxaa loo yaqaano khaatamu nubuwa shaambaddii calaamadda u ahayd nebinimada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkoodna nebinimadiisa si dhaba ay ugu aqoonsadeen sida saxaabigii la odhan jiray salmaan alfarisi radia allahu canhu shaambadda noocaasi may ahayn shaambad khadasa shaambadahan maanta aynu naqaano oo kale laakiin waxay ahayd qayb abuura oo ka mida jidhka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa waslad hilib oo kale ama qayb hiliba oo nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa aynu astaynay kaga taallay markay u weyn tahay waxa ay leekayd qofka feerhkiisaa duuban ayay leekayd markay u yar tahayna waxa ay leekayd la yareeyo xabadda beedka ah waxaa ku yaalay timo kooban ayaa ku dul yaalay hareeraheeduna waxaa ku yaalay waxa inagu aynu naqaano baraha oo ah midabka madow ee jidhka qaybo ka mida qaarkood ay xaaladaha qaarkood ay yeeshaan calaamadda noocaasa ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dhabarka uu ku lahaa afka nebigu calayhi salaatu wasalaam
ma ahayn af yar oo soo yuuban. afka nebigu calayhi salaatu wasalaam af waasica inuu ahaa ayaa asxaabta rasuulku ridwaanullaahi calayhim ay sheegeen daliicu lfam inuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa mid afka aada u qurux badan oo markuu afka kala qaado aada moodayso inuu nuur afkiisa uu ka soo baxayo oo halka dhoosha iyo micida u dhaxaysa inuu nuur ka soo baxayo ayaad moodaysa bay yidhahdeen iyo iftiin asxaabta rasuulku ridwaanullaahi calayhim. nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dhoolla caddayntu wejigiisa marnaba kamay faaruqi jirin. kaana kahiira tabasum calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ahaa mid dhoolla caddayn badan, qosolkiisuna dhoolla caddayn ayuu u badnaa, qosol aada u xoog badan oo ilaa gowsihiisu ay muuqdaan. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inta badan ma qosli jirin. dhoolla caddayntuna waxa ay ka mid tahay weji furnaanta nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu inagula teliyey inaynu ku qaabilno walaalaheenna muslimiinta ah. laa taxqiranna min almacruufi shay-a walow an talqa akhaaka biwajhin talq. wanaagga ha yaraysanin, wanaaggaasi haba noqdaba walaalkaaga muslimkaa markaad qaabilayso inaad ku qaabisho weji furfuran, dhoolla caddayn iyo soo dhoweyn iyo qalbi furnaane ay ka muuqato. wejigu wuxuu calaamad u yahay u ka turjumaa had iyo jeeraale waxaa qofka qalbigiisa ka socda, hadday tahay farxad iyo haddii ay tahay murugo, hadday tahay jacayl iyo kalgacayl iyo haddii ay tahay nacaybshiiyo iyo cadaawad. saxaabigii la odhan jiray jariir ibni cabdilxamiid albajali radia allahu canhu oo saxaabi reer yamaneeda ahaa, reerkoodana madaxba uu ahaa, wuxuu yidhi maa dakhaltu cala الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam mundu aslamtu ilaa tabasama fii wajhi. mar kastoo nebiga aan u galo laga bilaabo markaan islaamay, nebigeennu calayhi الsalaatu wasalaam dhoolla caddayn ayuu igu qaabilayey oo igu soo dhoweynayey. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam marka uu cadhoodo amaba se uu farxo, arrintaasi wejigiisa ayaa laga akhrisan jiray. saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim nebigu inuu faraxsan yahay wejigiisa waa ka dareemi jireen, wejigiisa ayaa iftiimi jiray oo farxadda calaamadaheedu si fiican ay uga muuqan jireen. markuu cadhoodana nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa ayaa isbedeli jiray. kadib saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxay nebiga weydiin jireen maxaanu biinay rasuulka ilaahay oo ama khaldan si aan u toobad keenno, wixii aanu khaladnay aanu u saxno. nebigeennu calayhi afdal الsalaati watasliim waxa uu ahaa mid timaha laabta iyo kaga yaallaa ay xidhiidhsan yihiin ilaa laabtiisa ilaa xundhurtiisa say sheegeen asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim. nebigeennu calayhi الsalaatu wasalaam muu ahayn qof aada u buuran oo hilib fara badan oo culus qaaday, gaar ahaan intii uu da' yaraa. markii dambe waxoogay hilibi waa fuulay say sheegtay caaisha radia allahu canha, iyadoo qiso cajiiba arrintaa ka dhex muujisay. waxay sheegtay in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo iyadoo ay tartameen, iyadoo safar lagu jiro intuu dadka ka soo reebay, waxaana taasi ka turjumaysaa dhaqankii wanaagsanaa ee nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ooryihiisa uu kula dhaqmi jiray. waxay sheegtay markaa in nebiga calayhi afdal الsalaatu watasliim ay ka dheeraysay iyadu maadaama ay aada uga da' markii dambe iyadoo ay hilibaysatay in nebigu uu la tartamay oo ka dheereeyey oo nebigu uu yidhi tii hore tan u jarcayshay haadihi bitilka, adna maalin baad iga dheeraysay, aniguna maalin ayaan kaa dheereeyey. rasuulkeennu calayhi afdal الsalaatu watasliim markay saxaabadu ka warramayeen xagga socodkiisa waxay tilmaameen in nebiga calayhi الsalaatu wasalaam socodkiisa uu ka marhnaa waxaa loo yaqaano takallufka, inuu culays isa saaro oo uu isku kelifo gaabin aanu ilaahay u dhalin ama dheerayn inuu isku kadeedo ilaahay aanu abuurin. laakiin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam abuur ahaan buu ahaa mid dheereeya, oo saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim waxay tilmaameen ninkooda u dheereeya u tallaabo dheeri in nebiga calayhi الsalaatu wasalaam xagga tallaabada aanu la dhigi jirin. waxaad moodaysa bay yidhaahdeen rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam marka uu soconayo inuu ka soo dhaadhacayo meel sare. waxaanaynu ogsoonna qofku markuu meel taaga ka soo dhaadhacayo tallaabooyinkiisu way dheeraanayaan, socodkiisuna wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u kororsan. markuu saxaabada dhex socdo
rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam umuu socon jirin sida madaxweynayaasha iyo boqorrada iyo lagu yaqaan oo dadka isagu inuu hor socdo dadka kalena ay daba socdaan. kaana yamshi baynahum ka waaxidin minhum, wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhex socon jiray sidii qof iyaga ka mida oo kale ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u dhex socon jiray. nebigeenna calayhi afdal salaatu watasliim abuurkiisu wuxuu ahaa mid aad iyo aad u quruxsan oo ay ka muuqato ilaahay subxaana wa tacaala jamaal iyo wanaag uu u dhaliyey si loogu soo hirto oo loo jeclaado oo loogu soo dhowaado. mana aha mid lagu soo koobi karo qormooyinkan koobkooban, laakiin intaa waxaynu uga jeednay uun muuqaal qofku guud ahaan uu ku aqoonsan karo rasuulkiisii moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka bixinno. dad badan baa waxay dhahaan rasuulka ayaanu ku riyoonnay. su-aasha la weydiinaya waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam suuradiisii waynu haynaa iyo siduu u ekaa. asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim ayaa inooga warramay. marka nebigu calayhi afdal salaatu watasliim ma lahaa markaad ku riyootay tilmaamaha mise ma lahayn? haddaad ku riyootay qof tilmaamaha ale rasuulkii baad ku riyootay. shaydaankuna nebiga iskuma mateli karo. man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii fa ina shayطaana laa yatamahalu bii buuri rasuulka. qofka igu riyooda dhab ahaan wuu arkay, yacnaa qofka sawirkayga dhabtaa arka weyaan macnuhu. waayo shaydaanku aniga iskuma soo kay suurayn karo. haddaad aragto qof aan sawirkii nebiga lahayn, sida qof madow ama madaxiisu wada ciro yahay ama gaaban ama nebiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisi khilaafsan, dhab ahaan nebigii calayhi salaatu wasalaam maad aragay, cid kale ayaad ku riyootay. ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu nagu arsaaqo kalgacayl